Penguins waa koox shimbiraha aan duulin inta badan oo ku nool agagaarka biyaha iyo biyaha gudahooda intaba ama aquatic animal intooda badan waxay ku nool yihiin dhanka koonfureed ee dhulka ama dhanka koonfureed ee dhulbaraha hal nooc ka mid ah laga magacaabo Galapagos ayaa laga helaa waqooyiga dhulbaraha markii la eego 18 nooc shimbirahan ka kooban yihiin waa ku aad u jecel yihiin ku noolaanshaha biyaha waxaynu kala bar noloshooda ku qaataan dhanka biyaha halka kala barka kale ay ka qaataan dhanka beriga magaca guud loo yaqaan waa penguins waxayna u kala baxaan 18 nooc aflaan iyo documentary badan ayaa laga sameeyay mana aha shimbiro Google laga arko jir ahaan waa kuwa kor iyo hoos u dhooban dhaxdana ay u weyn dhabarkana ay ka midow yihiin halka ay ka cad yihiin dhinaca hore waxaana jiraan kuwa leh midab naadir ah sida jaale iyo gaduud waxay jirtaa fikrad qaldan dadka badan ay aaminsan yihiin taasoo ah penguins inay ku nool yihiin qaaradda barafka daboolo ee Antarctica laakiin ay meeshaas ku nooleen waxa laga heli karaa penguins South America, South Africa, Australia, New Zealand iyo qaaradda barafka daboolo ee Antarctica shan nooc ka mid ah ayaa laga heli karaa waxa si gaar ah ugu badan labada nooc ee la kala yiraahdo Adelie iyo Ember noocyadan shimbirahan ma laga helaa qaanadeena Afrika dabcan jawaabtu waa haa waxaana laga helaa nooc loo yiraahdo jaqaas waxaana maanta noocan laga helaa qeybaha koonfureed ee Afrika oo kaliya ah dabeecadda ay jecel yihiin in ay ku noolaadaan shimbirahan waa deegaan ay ka heli karaan hooy iyo cunto iyo banaan ay iska falgari karaan si ay u tarmaan halka dabeecad ahaan ay ugu jecel yihiin qaanada barafka jiifo ee Antarctica tiradoodii guud waxa laga qiyaasaa ilaa 31 milyan waxayna iskala socdaan intooda badan kooxo waxa afka qalaad laga yiraahdaa marka ay kumanaan iskala socdaan magaca ah colony sidoo kale marka kooxo u wada socdaan laba ayaa loo kala qaadaa marka ay biyaha ku jiraan waxa loo yaqaan raft halka markii beriga joogan ay kooyihiin loo yaqaan wall markii la eego guud ahaan shimbiraha penguinska waa kuwa sameeya isku imaatinka ugu bilaaran ee shimbiraha waxaynu sababaha iskugu yimaadaan kamid ah inay inta badan ku laabtaan halka ay ku dhasheen si kumahooda u dhigaan una tarmaan waxaan xusid mudan in labka shimbir biyoodka laga tilmaamo xayawaanka ugu masiirka badan xayawaanada